maxkamadda degmada Hargeysa waxay maanta u fadhiisatay ku dhawaaqista xukunka ay ka soo saartay dacwadda ciqaabta sumadeedu ay tahay DDL Sparrow 136/2018 dacwadan waxa dhibaro ka ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana eedeysanayaalka ah Cabdicasiis Xaamud Maxamed Istaag ina Canab Axmed oo daadiisu ay tahay 22 jir eedeysanaha labaad Sidiiq Cismaan Cali ina Faadumo Ciise oo daadiisu tahay 22 jir Istaag Cismaan Cumar Yuusuf ina Muumino Cabdilaahi oo daadiisu ay tahay 22 jir Istaag waxa kaloo kiiskan eedeysana ka ahaa Cabdirasaaq Faarax Ciise oo maqana ah oo fakaday iyo Cabdicasiis Mooga Diiriye oo isaguna maqana ah maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga dacwadan shalay oo bishu ahayd 12 bisha 2 2018 waxaanay maxkamaddu ka soo saartay go'aan markii ay shalay dhageysatay oogidda dacwadan ee xafiiska xirlaantu uu soo oogay iyo difaaca eedeysanayaashu ay maxkamadda horteeda la yimaadeenba maanta oo bishu tahay 13 bisha 2018 waxa lagu eedeynayaa eedeysanayaashan inay ku gafeen xeerka ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka labadaba ee xeer lambar 69/2015 intaas waa historigii kiiska asbaabta xukunka maxkamadda degmada Hargeysa markay u fadhiisatay dhageysiga dacwadda ciqaabta sumadeedu tahay DDL Sparrow 136/2018 maalintii taariikhdu ahayd 12 bishii 2018 cabaaro 9:30 daqiiqo ee barqanimo maxkamaddu markii aragtay xaashada eedda ee lidiga ku ah shantan eedeysane ee kala ah eedeysanaha koowaad Cabdicasiis Xaamud Maxamed ina Canab Axmed iyo eedeysanaha labaad Sidiiq Cismaan Cali ina Faadumo Ciise oo daadiisu tahay 22 jir iyo eedeysanaha saddexaad Cismaan Cumar Yuusuf ina Muumino Cabdilaahi oo daadiisu tahay 22 jir iyo labada eedeysane kale maqana ah ee Cabdirasaaq Faarax Ciise iyo Cabdicasiis Mooga Diiriye haddaba maxkamaddu markii aragtay xaashada eedda ee lidiga ku ah shantan eedeysane ee laba ay maqanayeen xaashada eedda oo xafiiska xirlaalintu uu soo gudbiyay maxkamadda degmada Hargeysa sumadeeduna ay ahayd xig Sparrow 220/2018 kuna taariikhaysnayd 12 bishii 2018 xaashada eedda oo uu soo gudbiyay xafiiska xirlaalintu maxkamadda degmada Hargeysa maxkamaddu markay eedeysanayaashan sare ku xusan ay u akhriday xaashada eedda si waafaqsan qodobka 103 ee xeerka habka ciqaabta sida ay tilmaamayaan faqradiisa kala duwan iyadoo mid ay uga jawaabeen eedan lidiga ku ah waxaana lagu soo eedeeyay inay si wada jir ah ugu gafeen taariikhdu markay ahayd 13 bishii 1 2018 cabaaro 7 saac ee habeennimo in lagu soo qabtay iyaga oo diin kuna sita gaari duqaana oo lambarkiisu yahay 62732 Somaliland sidaana ay ugu gafeen xeerka ilaalinta xakamaynta deegaanka iyo duurjoogta ee xeer lambar 69/2015 qodobadiisa 27aad xarafka ta iyo qodobka 8aad faqradiisa koowaad waanu ka shakinay kadibna soo dega ayaanu ku niri darawalkii iyo afar kale oo la socday shantaas ay gaariga ku wateen darawalku wuu diiday inuu ka soo dego gaariga shookaanta ayaanu qabsaday afartii kalena gaariga ayay ka soo degeen intii aanu wada hadlaynay darawalka ee aanu lahayn gaariga ka soo deg ayaa afartii eedeysane dhulka yimi mid ka mid ah ayaa fakado madowgii naga raacay laba askari oo quraan ahayn waxaanu ku mitidnay markaa inaanu
xarayno kadibna waanu xaraynay gaadhigii baanu baadhnay gaadhiga markii aanu baadhnay halka lagu rido istabniga gaadhiga ayaanu bac baa saarnayd mushamaca waanu ka qaadnay taayir baa saarnaa gaadhigu lahaa waanu ka qaadnay diinkaas ayaanu ugu tagnay oo ku jira diinka sidaasaanu ku soo saarnay sidaas ayaananu ku xidhnay kadibna waxaanu la hadlay taliyaha cadaadley oo aanu ku wargelinay kiiskan waxaanu noo soo diray gaadhi xaajiyada sidaas ayaanu afartii eedaysane oo mid inaga fakaday iyo gaadhigii iyo diinkiiba aan ugu wareejinay taliyaha cadaadley sidaas baana hargeysa loogu soo gudbiyey kuwani waa kuwii aanu diinka ku qabannay waxaa kaloo uu sheegay askariga labaad in eedaysanayaasha afartaa mid ka mid ah markii hargeysa loo soo waday ee hargeysa ay soo gaadheen marka uu joogo kaalinta sugri inuu gaadhigii ka booday isagoo dusha saaran sidaana uu ku fakaday sidaana saddex eedaysane iyo gaadhigii ay ku sideen fitistaa iyo diinkan maxkamadda hor yaalla sidaa lagu keenay laguna soo eedeeyey maxkamaddu haddaba markii ay u gudubtay difaaca eedaysanayaasha sida uu qabo qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta haddaba maxkamaddu markay ku qanacday qiraalka eedaysanayaasha iyagoo sheegay in diinkan ay iibinayeen faa'iido doonna ay u siteen iyagoo ka koobnaa 5 eedaysane oo 2 ay fakadeen 2 maxkamaddu waxay ku qanacday 2 marag ee kala askari bool 5448 محمد عبد الله آدن ودادي ستايشن يسدنجر يا عسكري بول 1349 ناصر عبد الله حسين ودادي ستايفر تنجر حرق هايه كنترولك قطن دبو كواسو سيتو سوغو عدي بعد الدار إن الشنطن ايدي سنة اي لما مقانها يهين كوي كسو قبتين ييغو دينكا سيقر سودية أسيتا ويسلا الشرعك لا دافع oo sharciga si ay uga qariyaan ku soo xaseeyay taayirka halka lagu rido istabniga qodobada ay ku gafeen ee 720 xarafka ta'ja iyo qodobka 820 faqradiisa koowaad maxkamaddu markay aragtay qodobada sharci 7 koob iyo 7 2 7 3 7 8 6 boqol iyo 3 boqol iyo 4 boqol iyo 8 boqol iyo 10 boqol iyo 10 boqol 14 boqol iyo 16 boqol iyo 19 boqol iyo 20 boqol koob iyo 20 boqol 49 boqol 27 boqol 8 boqol koob iyo 8 boqol 28 boqol 58 boqol 48 ee xeerka habka ciqaabta sidaa darteed maxkamaddu waxay u aqoonsatay maanta oo ay bishu tahay 13 bisha labaad 2018 shanta eedaysane kala ah eedaysanaha koowaad Cabdicasiis Xaamud Maxamed oo daadiisu tahay 22 jir eedaysanaha labaad صديق عثمان علي ودادي ستاي كوبي لباتنجر هذا سنة صدحان عثمان عمر يوسف ودادي ستاي لبي سودنجر إيوه هذا سنة أفراد عبد الرزاق فارح قيسه ومقنعة هذا سنة شنات عبد العزيز مقديري ومقنعة وحوا قوصة محكمة الدنبيليال سشر الدرعة وقوق في حيرك إلى أنت الديغانك يدور شوكة الصومالي الآن حير لمبر 69 قبل 2015 قدو بديسة تطبيق لباتنات سديدي لباتنات فقرد التأتأ يقضب كسديدي لباتنات فقرد ديسة كواد ايس الحير كان وحاري محكمته سو صارت الحكم كان ما انت واي بيشو تحي صدح يا تومنك بيش اللبات لما كوني سديدي تومن استاقع دنبيليال عبد العزيز حامد محمد إنا أنا محمد ودادي ستاي كوبي لبات دنبيلها لبعض صديق عثمان علي إنا فاطمة عيسى ودادي ستاي كوبي لبات دنبيلها صدحات عثمان عمر يوسف إنا مؤمنة عبد الله ودادي ستاي لم يسدنجر دنبيلها أفراد عبد الرزاق فارح عيسى ومقنعة
iyo dembiilaha shanaad cabdicasiis mooga diiriye oo maqana ah oo si wada jira ugu gafay xeer lambar 69 ablic 2015 xeerka xakamaynta iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta Soomaaliland qodobka 7-aad qodobka 8-aad xarafka koowaad faqradda ta'ja waxa lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xarig ciqaabeed ah oo aan iib lahayn iyo min 3 milyan oo ganaaxa oo la socda midkiiba maadaama dambigan ay qirteen laba xarigu waxa uga bilaamayaa maalintii la soo xiray bishuna ay ahayd 31 bishii koowaad 2018 saddex gaarigii diinka lagu siday ee lagu qabtay ee fitista ahaa ama duqaanka ahaa waxa lagu xukumay 3 milyan oo ganaaxa haddii lagu qabto mar dambe oo kale isagoo falkan oo kale ku jira oo faraha kula jira gaarigaas maxkamaddu waxay u xukuntay qaranka inuu la wareego oo loogu shaqeeyo dadweynaha iyo qaranka afar diinkan la qabtay ee gacanta shanta dambiile waxa lagu amrayaa wasaaradda deegaanka inay daryeelkiisa la wareegto diinkan maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13 bisha 2 2018 iyadoo sharciguna xorriyadiisa u celiyay diinkan laga bilaabo maanta oo bishu tahay 13 bisha 2 2018 xukunka waxay maxkamaddu ku dhawaaqday maanta oo ay bishu tahay 13 bisha 2 2018 xukunkan waxa loo cuskaday xeerka ilaalinta iyo xakamaynta duurjoogta xeer number 69 ablic 2015 wadii xukunka ku qanci weyday qiraalka ku yina sharcigu rafcaan ayuu u ogol yahay si post trial ilaahay baa xukun leh ilaahay baa loo noqonayaa walillaahi alxukmu wa ilayhi turjacuun maxkamaduna way xidhan tahay wabillahi tawfiiq